muuqaalkan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa xaqiiqda sawirka qabriga nabiga sallallahu alayhi wasallam. halkan waxaa ka muuqda sawiro badan oo ku faafay baraha bulshada kuwaas oo lagu sheegay qabriga nabiga sallallahu alayhi wasallam, laakiin dhammaantoodba waa waxba kama jiraan. laakiin waa kan qabrigii nabiga sallallahu alayhi wasallam oo ku yaala qolka ummuna Aisha. halkan sawirka waxaa idinkaga muuqda saddex dhagax. kan koowaad kani waa qabriga nabiga sallallahu alayhi wasallam oo ku yaala dhinaca midig. kan ku xiga waa qabriga Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. kadib waxaa ku xiga kan Umar bin Khattab radiyallahu anhu. halka kanina qolka dambe waxaa idinkaga muuqda alaabtii ummuna Aisha radiyallahu anha isticmaali jirtay, laakiin Aisha way kala qaybisay kadib markii lagu caasay Umar bin Khattab radiyallahu anhu. laakiin ka hor halkan wuxuu ahaan jiray qolkii ummuna Aisha radiyallahu anha xilligii nabiga sallallahu alayhi wasallam uu noolaa. sawirka qaybtiisa hoose waxaa idinkaga muuqda albaabka nabiga masjidka ka aadi jiray oo ku yaalo rawdatu shariifa. halkan sare waa albaabka uu ku aadi jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam xaasaskiisa kale ee ummahatul mu'miniinka kale. halkan waa halka albaabka nabiga sallallahu alayhi wasallam kaga bixi jiray banaanka. halka ugu shishaysa ee sawirka waxaa idinkaga muuqda daaqada ay ka soo ziyaartaan nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo Abu Bakr iyo Umar radiyallahu anhuma markay siyaada ugu imaanayaan dadka masjidka nabiga sallallahu alayhi wasallam. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuu dhashay isagoo agoon ah, wuu dhintay isagoo sharaf leh, wuxuuna ahaaday kan ugu sharafta badan khalqiga Allah. aynu ku salno nabiga sallallahu alayhi wasallam.